سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال قضبضاد ورركن كمغلي دونتان وحا كميدا دقالاد علوس ayaa ka soconaya magaalada Diyaarka deegaanka xamaarada ayadoo hubka aadka u culus ay soo adeegsanayaan xogaga TPLF markale duulaanka ballaaran soo qaadaya ciidamada dawladda Itoobiya iyo maleeshiyaadka deegaanka xamaarada isku dhinaca dagaalka xoogiisuna uu ka soconayo magaalada duleedkeeda ciidamada dawladda iyo ciidanka deegaanka xamaaraduna ay difaac aad u weyn kaga jiraan magaalada xogaga TPLF-na ay wadaan weerar xooggan oo ay ku doonayaan gebi ahaanba inay magaaladaasi la wareegaan dagaalkuna waa aad u culus yahay sidoo kale waqooyiga Gondar ay ka soconayaan dagaalo culus iyadoo xogaga TPLF ay waqooyiga Gondar mar kale dagaal ka fureen dagaalkuna uu aad u culus yahay ciidamada dawladda iyo ciidamada dawlad-deegaanada Itoobiya laga soo ururiyay ay dagaal culus kula jiraan xogagaasi walina dagaalku uu ku sii fidaya deegaano hor leh xogaga TPLF-na ay gulaad u ballaaran ka sheeganayaan dagaalka ka soconaya waqooyiga Gondar sidoo kale deegaanka Canfarta ay wali dagaaladu ka sii soconayaan iyadoo xogaga TPLF iyo ciidamada militariga Itoobiya ay ku dagaalamayaan Asda oo dhul istiraatiiji ah oo buralaya gacan ku haynta deegaankaasi ay hadda ciidamada militariga gacanta ku hayaan hase yeeshee xogaga Tigrayga ayaa weerar aad u ballaaran ka wada deegaanadaasi iyadoo hubka aadka u culus ay soo adeegsanayaan xogaga TPLF iyo militariga Itoobiya sidoo kale waqooyi galbeed Tigray ayay ka soconayaan dagaalo aad u culus ciidamada Eritrea u dhaxeeya xogaga TPLF militariga dalka Eritrea ayaa hubka aadka u culus ku garaacay fadhiisimo ay leeyihiin xogaga TPLF iyadoo halkaasi uu ka bilowday iska horimaadyo aad u ballaaran oo u dhaxeeya TPLF iyo militariga dalka Eritrea oo garab weyn siinaya ciidamada Itoobiya ee ka dagaalamaya deegaanadaasi iyadoo deegaanadaasi dagaalo xooggan ay ka soconayaan xogaga TPLF ayaa wajahaya weeraro culus oo kaga imanaya dhanka Eritrea iyadoo ciidamada Eritreaanku ay isku sii ballaarinayaan deegaano ballaaran oo ku teedsan gobolka Tigrayga iyo dalka Eritrea hase yeeshee dagaalyahanada TPLF ayaa sheegay inay si weyn iskaga caabiyeen weerarada xooggan ee ciidamada huwanta walina dagaalku uu ka sii soconayo deegaanada ballaaran oo ka tirsan waqooyi galbeed Tigray dagaalyahanada OLF ee dagaalka xooggan ka wada gobolka Oromiya ayaa sheegay inay guulihii abid ugu ballaarnaa ka gaadheen dagaalo xooggan ay la galeen ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa deegaanka Oromada muuqaalo ay miidiyaha ku baahaysa ku sheegtay inay jabkii abid ugu cuslaa ay gaadhsay ciidamada dawladda muuqaaladaasna ay muujinayaan guulaha waaweyn ee ciidankoodu ka gaadheen iyo muuqaalo ay soo bandhigtay maxaabiis aad u tiro badan oo gacanta ku dhigtay oo ciidamada dawladda federaalka Itoobiya OLF ayaa sidoo kale kumanaan dagaalyahana tababar ugu soo xidhay bartamaha deegaanka Oromada oo ku biiraya dagaalka lagula jiro dawladda xooggan ee dagaalada xooggan ee dawladda Itoobiya iyo xogagaasi ka dhaxeeya iyadoo qoomiyadda Oromada ay si wada jir ah u garab istaagtay dagaalyahanada OLF ayagoo gulaad u ballaaran ka gaadhaya dagaalada xooggan ee ka soconaya deegaanka Oromiya militariga dalka Soomaaliya ayaa howlgalo aad u ballaaran oo ka wada koonfurta Soomaaliya sheegay inuu ku khaarijiyay weeraraan 12 sargaal oo ka tirsan xogaga argagixisada iyadoo wali dagaalo culus ka sii soconayaan koonfurta Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa kor u sii qaaday weerarada ka dhanka argagixisada iyo fadhiisimaha ay ku leeyihiin guud ahaan koonfurta Soomaaliya iyadoo dagaalada culus ka soconayaan deegaanadaasi ciidamada macawisleyda iyo militariga Soomaaliya ayaa sii kordhiyay weerarada ka dhanka argagixisada iyadoo ciidanka dawladda iyo ciidanka macawisleyda ee gobolka Hiiraan ay guulaad u ballaaran ka gaadheen dagaalada lagula jiro xogaga argagixisada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 14 bisha 10aad 2022 haddaynu guda galno wararkeeni oo faahfaahsan
dagaalada xooggan ayaa ka soconaya duleedka magaalada Diyaarka iyadoo halkaasi xoogagga TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya dagaal faraha laga gubtay ku dhaxmarayo xoogagga TPLF ayaa weerar ku qaaday fadhiisimada ay ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa deegaanka Axmaaradu ay ku leeyihiin magaalada Diyaarka oo magaalo istiraatiiji ah dagaal aad u culusna oo halkaasi ka soconaya xoogagga TPLF iyo ciidamada dowladda Itoobiya ay soo adeegsanayaan hubka aadka u culus deegaanadaasi ay gebi ahaanba dadkii rayidka iskaga barakaceen iyadoo dagaaladu aad u culus yihiin deegaano horlana ay ku sii faafayaan marba marka ka dambeysana dagaalku uu deegaano horle ku sii fidayo xoogagga Tigrayga ayaa isku dayay gebi ahaanba inay magaalada Diyaarka gacanta ku dhigaan iyadoo sidii la wada ogsanaba xoogagga TPLF ay dhawaan deegaanadaasi iskaga huleeleen hase yeeshee weerar rogaal celis ay mar kale ay ku qaadeen deegaanka Axmaarada sidoo kale waqooyiga Gondar ay ka soconayaan dagaal aad u culus oo u dhaxeeya xoogagga TPLF iyo ciidamada huwanta dowladda Itoobiya iyadoo xoogagga Tigraygu ay sheegeen inay guulaad u ballaaran ka gaadheen dagaalka ka soconaya waqooyiga Gondar jab aad u culusna ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda Itoobiya iyo saaxiibadooda garabka siinaya dagaalkuna uu marba marka ka dambeysay deegaano horle ku sii fidayo sidoo kale asda oo ku tala deegaanka Canfarta ay dagaal culus ka soconayaan iyadoo Tigraygu ay bilaabeen dagaal jahooyin badan leh deegaanka Canfartana ay halkaas ka dagaalgeliyeen kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka TPLF si ay gacanta u dhigaan dhulka buraleyda istiraatiijiga ee asda oo 24 saac la soo dhaafay ay dagaaladu kala joogsi kala hayn xoogagga Tigrayga ayaa sheegay inay deegaano ballaaran ka qabsadeen dhulkaasi walina dagaalka ay sii wadaan dagaalkuna uu deegaano horle ku sii fidayo sidoo kale ciidanka TPLF iyo militariga dalka Eritrea ayaa ku dagaalamaya duleedka magaalada Shire iyadoo xoogagga Eritreaanku hubka aadka u culus adeegsanayaan sheegeen inay fadhiisimo ay TPLF lahaayeen burburiyeen hase yeeshee dagaalyahanada TPLF ayaa sheegay inay si weyn iskaga difaaceen weeraro xooggan oo kaga yimid militariga dalka Eritrea iyo ciidanka dowladda Itoobiya garab weyn kale militariga dalka Eritrea dagaalyahanada OLF xoreynta shacabka Oromiya ayaa soo bandhigay muuqaal argagax leh oo ku sheegeen in ciidamada dowladda Itoobiya ay jabkii abid ugu cusla u geysteen deegaano kamid ah gobolka Oromada halkaana ay ka soconayaan dagaal aad u culus OLF ayaa weeraro xooggan ku haystay maalmihii la soo dhaafay fadhiisimaha ciidanka militariga dalka Itoobiya iyo kan deegaanada Oromada sidoo kale OLF ayaa tababar soo xidhay kumanaan ka tirsan dagaalyahanada OLF ee sida weyn qaybtay libaaxa lagu qaadanaya dagaalka lagula jiro dowladda Itoobiya militariga dalka Soomaaliya ayaa wali hawlgal ka sii wada koonfurta Soomaaliya isagoo si weyn ugu baxsanaya xoogagga argagixisada jab aad u weyn gaarsiiyay ciidamada argagixisada militariga Soomaaliya u guulihii abid ugu cusla ka gaadhay dagaalka ka soconaya koonfurta Soomaaliya tan iyo kulanti dambo wacan salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh